kulankan ay isku xog wareysanayeen hay'adaha samafalka iyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Galmudug ayaa la isku wadaarsaday aragtiyo la xiriira hay'adaha samafalka iyo kaalinta ay ka qaadan karaan gargaarka bini'aadanimo ee deegaanada maamulka Galmudug siyaha wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Xamse Saciid Xamse ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay hay'adaha samafalku inay ka jawaabaan baahiyaha bini'aadanimo ee ka tagan deegaanada maamulka Galmudug hadda sugeysaan dad shisheeyna yimaadaan in meelahaas wax ka qabtaan qoraxdan ugu dhici doonto reer Galmudug waxaan leeyahay kaaca Galmudug inaka kaliya ay horumarin karo horumarka Galmudugna waa horumarka Soomaaliya وانا أمنسناهاي إن يكونوا لين ضد محل يرادا أو حقبض بدن أو حصار له إن ماشى أوسو جيستان وزارة ذا كله الدولة دنا سنة أنا قام بلاين نقود ديسان إن أي تجان قبل كاس خوف كسو وزارة كسو دي جد إن مارتي إن واحد قبض سنة أنا قام وقبنا وزارة جرجار كمارمتون sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Diiriye Makaawi ayaa waxa uu sheegay inay dhawaan diiwaan gelinayaan hay'adaha samafalka si loo bilaabo howlaha samafal ee deegaanada maamulkaasi ujeedadana waxa ay sare u qaadista wax ka qabadka xaaladaha bini'aadanimo ee Galmudug ka jira haatan iyo mustaqbalkaba iyo xoojinta iyo kabida wasaaradda gargaarka ee dowlad goboleedka Galmudug baahiyaha wasaaradda gargaarka ee Galmudug sida la socotaan Galmudug markii la asaasay wasaaradda gargaarka waxay ahayd wasaaradii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay waxaad moodaa inay wasaaradda gargaarka ay ka horeysay midda federaalka ayadoo markaas magaceedu ah wasaaradda gargaarka iyo daryeelka naafada iyadoo sanadkii hadeertaana lagu bedelay wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo kamid ah mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in haatan horumaro dhinacyo kala duwan ay higsanayso dowlad goboleedka Galmudug taasina ay muujinayso dadaalka adag ee isku duubnida maamulkaasi ku shaqeynayo waxaana uu ka dalbay hay'adaha samafalka iyo kuwa dowladaba inay si buuxda ula shaqeeyaan maamulka Galmudug hadday tahay waxbarasho hadday tahay xagga biyaha waxa weeye dhulkaasi waxa la oran karayaa markii si kooban loo sheego waa dhul la hilmaamay weeye dhul aan ma oran karo aniga mas'uuliyiinta Soomaaliya dalkan maamulaysa dan gaar ah kala haayeen inaan waxba la siin laakiin sababo un baa jiray meesha ma jirin wax horumar oo laga sameeyay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu xoojinayo xarumaha gargaarka ee dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo guud ahaanba wasaaradaha maamul goboleedyada dalka ee ka shaqeeya gargaarka iyo maareynta musiibooyinka si ay u yeeshaan awood iyo tayo ay ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed Maxamed Daahir Degane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho